faysal iyo ciral halkan ay la taageen siirigii oo iyaguna sidii malagii suurta afuufaya basiil afuufaya ilaahay kama dhiga kii Soomaaliland rogayay laakiin soo siiri khatartiisa leh oo soo wajahan inagina uu garanayna asna loo sheegi maayo ku soo dhawaada waraysi gaar ah la yeelan doono siyaasi Jaamac Ismaaciil Cige oo kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee Somaliland siyaasi ku soo dhaw telefishinka CBA siyaasi Jaamac Shabeel bal waxaad naga warbixisaa xaaladda siyaasadeed ee Somaliland ee waqtiga xaaladda siyaasadeed ee Somaliland waxay ku sugan tahay kala kicin gurdumi taariikh habeenkii eedin may ka dambeeyay xaaladdu waxay ku sugan tahay kala kicin gurdumi waxaa la moodaa madaxweynaha xaalkiisu inuu yahay ha ku socoto sidii loogu talagalay ha ku socoto sinaan iyo cadaalad heesi kacaanka inuu qaadaya waad moodaa markaad eegto komishanka iyadoo 5 bilood ka harsatay doorashadii lagu kalifay inay kala tagaan oo isdacsilaan iskama imanoo dee wax out of the blue ka dhashay maaha iscasiladoodu inagina uu garanayna asna loo sheegi maayo sababta iscasiladoodu 5 biloodna waxay ka harsan tahay taariikhda doorashada faysal iyo ciral halkan ay la taageen siirigii oo iyaguna sidii malagii suurta afuufaya basiil afuufaya ilaahay kama dhiga kii Soomaaliland rogayay laakiin soo siiri khatartiisa leh oo soo wajahan sidaan kuu sheegay madaxweynuhu wuxuu qaadayaa ha ku socoto sidii loogu talagalay ha ku socoto sinaan iyo cadaalad waa nibadii aragtidiisa xaggana cadaalad darra laga tirsanaya oo taala marka waa cakirataa xaaladda siyaasadeed dalku komishankii dhammaantood way iswada casileen iyaga laftooda maxaa laga dhaxli karaa cawaaqib noocee ay ku reebi karaan siyaasadda Somaliland dhammaantood way iswada casileen iyaga laftooda maxaa laga dhaxli karaa cawaaqib noocee ay ku reebi karaan siyaasadda Somaliland iyaga maxay ku reebeen iyaga markii shaqadoodii loo ogolaan waayay eeg ma bedeleen waxay isla shaqaysta shaqadiina watay loo xubina uu iska haystaa iminka dhowr bilood oo loo sabcuuday soo magacawdo kii hore iscasila bedelkiisii dhowr bilood buu iska haystaa way iska wada lahayn 5 xubnood shaqada waa lagu caburiyay haddana markii hawsheeda oo wadada waxba lagama xuma guddi baariseed baa idin soo diray baa lagu yidhi marka guddi baariseed markii tafadar waa shaqada joojiya waxbaa la baarayaa guddida baaristuna ujeedadeedu cabulish joogta hakiin shaqadaas subax socota shaqada markii laga hakiin maxay ka qabanayaan meesha intii ay naawili karayeen ay baxnaanin karayeen way baxnaaniyeen markii ka soo reey weyday guddidiina ka tagi weyday shaqadooduna sidii oo cadilaatayna way iscasileen waajibkaa lacaynkaa ku odhanaya markaad xil umadeed hayso haddaan xilkii gudan karaynin sababta wax kastaa noqotee waa inaad iscasishaa maaha inaad mushaharka yar ee xajitood meesha sii fadhido sidii saxaydna way yeeleen 13 November 2022 maxay noqon doontaa iyadu waxay noqonaysaa maalintii dee muuse xil gudashadii laga filayay ugu dambeysay waa the last day gaaladu dhuumis day bay dhahaan maalinta qiyaamahay ku sheegaan
maalintaas waa maalintii muuse ugu dambeysay madaxweyne la yidhaah mudane madaxweyne la yidhaah waa maalintii ugu dambeysay muuse waxaa ku soo foole qodobka dastuuriga xilgudasho la'aan in berri ka maalin lagu soo eedeeyo inuu xilka ku waayo xilgudasho la'aanta markuu xilka ku waayo xilgudasho la'aantaana xukunka dalka waxaa qaban doonaa guddoomiyaha golaha guurtida oo Saleebaan Maxamuud Aadan nimanka uu ku fadhiyo haddii uu sii noolaado intaa uu ilaahay daayo guddoomiyaha golaha guurtida kursi ku fadhiisan doona waxay noqon doontaa inuu guddoomiyaha golaha guurtida xukuumad koobanoo gaadhsiiso doorashada dalka uu soo dhiso muddo gaaban ku soo dhiso muddo gaabanna uu ama muddada ugu horeysa suurtagalkeeda doorasha ku qabsoomaysana uu doorashada ku qabto waayo ninkii u xil saaraa ee waajibkaa dastuurigii uu saaraa oo madaxweyne maanta kursiga ku fadhiyahay xilkaa gudashadiisii uu ka baaqsaday markaa sabab loogu sii sugo iyo waxaa wax lagu sababeeyo oo la yidhaahdo ha loo kordhiyo berrituu qaban doonaaye meesha ma taalo